ciyaartan ay dadku jaanta isla helayaan waa ciyaar dhaqameed ka mid ah kuwii loogu jeclaa dalkeena balse sii dhawargo'aya waxaana loo yaqaanaa sharax bulshooyinka qaarkood ayaa inta badan ciyaartan qayb kaga dhiga xafladahooda si ay u muujiyaan quruxda xafladooda daawadayaal sida u jeedaan qalabkan horteeda yaal waxa ay ka mid yihiin qalabka loogu talagalay in lagu ciyaaro marka la dheelayo sharax wuxuu ka mid yahay dhaqamada cajiibka ah ee dadka Soomaaliyeed qaarkood ay leeyihiin ama xilliyada arooska ama farxadaha ay isticmaalaan waxaan loo isticmaalaa qalabkan u jeedaan oo alwaaxyadan iyo bahalkan uu ka mid yahay inta la isku garaaco ayaa laga dhigaa hees ama music dadka ay ciyaaraan koox u diyaarsan xiisa gelinta ciyaartan ayaa inta badan dadka u garaaca durbaan sacab uu ku laran yahay iyo alwaaxyo isla siman oo la isku garaacayo laguna qaadayo heeso u badan Carabi xasan cabdi muude waxa uu in ka badan 10 sano uu ku jiray hawshan waxa uu inooga sheekeynayaa ciyaartan loo yaqaano sharaxa waxa ay tahay iyo xilliyada la ciyaaro kadibna hidda iyo dhaqan anaga aan u leenahay oo Soomaali iyo Carab isku jirta oo wada jirta ayaa dhaqan iyo hidda u yeeshay aad iyo aad ayaan ma aragtay dadweynaha iyo dhamaanba shacabkaba oo ugu riyaaqayaan aysan u badan tahay fanka hadda badi lagu ciyaaro uu yahay sharax goorma la ciyaaraa sharaxa waxa la ciyaaraa aroosyada sidii oo baraakiinta markii xafladaha dhamaan iyo ziyaarooyinka intaba waa wada sameynaa oo ku wada dhannahay waxyaabaha la qaado waxaa ka mid ah soodad Carabi ah baa jira oo la qaado oo la sheego mid oo Soomaali ah isagana waa qaadnaa oo amaanta ah waan ku darsanaa intaba laakiin badi wuxuu u badan yahay Carabiga u badan yahay dadka ku sugan goobta lagu ciyaarayo ciyaartan loo yaqaano sharaxa ayaa xilliyada qaarkood waxa ku soo degaya wax lagu sheegay in ay yihiin duulal xasan ayaa weydiiyay arintaasi dadka iska bedel waxa ku soo degta arwaaxda ku soo degaysa way dadka soo degaysa ruuxaanta waxaan kula hadalnaa afkoodan kula hadalnaa Carabigan kula hadalnaa xilligaas maxay u soo degteen waxay u soo degteen haday wax u baahan yihiin markaas ay u baahan yihiin waxay ku yimaadaan hadba anaga oo ku qaabileena wajiga ala wajigeena ugu yimaadaan marka maxay badanaa waxay dalbadaan wixii cabitaanka iyo sharaabiyada iyo wax la cabay iyo waxa si badan waxyaabaha cajiibka ah ee ciyaartan sharaxa u gaarka ah waxaa ka mid ah in dadka goobta ku sugan ay siibayaan dhammaan kabaha ugu jira haddaba maxay tahay arintaasi xasan ayaa markale nooga jawaabaya sababta ay tahay waxay tahay munaasabka meesha yaala inuu yahay dad mushayiq inay yihiin haddaan la siimi wax u dhici maayo laakiin dhaqanka oo ka mid yahay Umar Boole M24 TV Muqdisho